حمدا لله سلام عليكم ولا الله كبر دون وناجا وسود هذا مركله أرق ضمير nebi yacquub uu magaciisa labaad ahaa israa'iil sida nebigeena moxamed uu magaciisa labaad u ahaa axmed ayaa asaga iyo qoyskiisa waxay u soo guureen masar sida hore ugu soo hadalnayba nolol cusub ayaa waxay ka bilaabeen masar dhulaan dhulkooda ahayn ilaan waxay ka soo tageen shaam awowgooda ibraahimna wuxuu ka soo haajiray kuna dhashtay dhulka baabil ee ciraaq ubadka nebi yacquub ayaa ku tarmay oo ku batay dhulka masar markuu geeriyooday aabahooda yacquub ilaa mid walba oo ka tirsan ubadka 12 ahaa uu noqdo awoowe abkow abuulan oday qabiil dhammaantoodana kuwada abtirsada magaca israa'iil nebi yacquub taasina waxay tilmaamaysaa isbeddelka xilliga iyo حتى بغركي كتليني مصر حلقي النبي إبراهيم وما يكو بغركي كتليني حلقي النبي يوسف نصيب ضرب بغركي كتليني مصر حلقي وبدك النبي يعقوب مركا أي نقدين قبيلو وذاق مقع بني إسرائيل أيا وحوقها فرعون وكو عن بحي وحخر بضات يقميسي ما عملكو فرعون وحيو أركيان رب بني إسرائيل ليهين قحوتي يسور دقلتا إن لقميستو فرعون وحو حلالي سنجري دو مركا رب بني إسرائيل عداودي عيلك وخوحي كررتي مركا قبطيين تي قامك فرعون مركا يسو غارسيين مدحوذا فرعون بشعارة دلاشدا ويل رب بني إسرائيل أو أرنكي سوينان go'aan degdeg ah ayuu fircoon qaatay go'aankaas oo ka dhan ah wiil walba oo ka dhasho reer bani israa'iil in la gowraco fircoon wuxuu ogaaday dhalashada nebi balse wuxuu isku dayay inuu ka hor imaan karo qadarta alle sidaas darteed ayuu wuxuu gumaaday uu dilay caruur fara badan oo ka tirsan reer bani israa'iil laakiin qorshe ilaahay ayaa ka soo baxo meel ay dadka ka fileenin hooyo wanaagsan ayaa waxay dhashay wiil waxayna u bixisay muusa bin cimraan ilaahay ayaa qalbigeeda ku xasiliyey muuse hooyadiisa inay wiilkeeda nuujiso hadday ka cabsato ciidanka fircoon inay ku tuurto webiga kana cabsanin ayna murugoonin ilaahay ayaa u kafaalo qaaday inuu u soo celinayo wiilkeeda deedna laga dhigayo nebi la soo diray maadaama ciidanka fircoon ay fulinayaan go'aankii fircoon oo ahaa in la dilo ubadka u dhasha reer bani israa'iil ayaa cabsatay muuse hooyadiisa waxayna ku ritay wiilkeeda sanduuq deedna waxay ku tuurtay webiga gabadheeda ayay ku tiray muuse walaashiisa raac oo ka eeg meel fog muuse walaashiis ayaa daba gashay walaalkeeda yar waxayna ka eeganaysay meel fog ilaa ay aragtay in reer fircoon ay gacanta ku dhigeen sanduuqii webiga lagu tuuray iyagoon ogeen ayay ka daalacanaysay meel fog fircoon ayay u keeneen fircoon wuxuu amray in la dilo balse xaaskiisa aasiya ayaa tiri hadilina waxaa laga yaabaa inuu wax noo taro ama aan ka dhigano ubad iyagoon ogeen inuu yahay wiilka ay dartiisa u gumaadeen caruur fara badan maadaama uu muuse xilligaas ahaa cunug yaroo mujuluq ah ayaa waxay damceen inay u raadiyaan naag nuujisa dumarkii magaaladay wax nuujinaya ayay ku dawaafeen intaba muusan aqbalin ilaan qorshaha ilaahay ayaa socdo meeshaas ayaa fursad waxay ka heshay muuse walaashiisa way u soo muuqatay oo waxay ku tiri reer fircoon ma idiin tusaa qoys dhaqaaleeya una samafala wiilkan yar oo nuujiya taladii gabadh yareed ee muuse walaashiisa ayay ka aqbaleen iyagoo ogeen inay tahay walaashiisa sidaas ayaa ilaahay ugu soo celiyey muuse hooyadiisa qalbigeedana ku xasiliyey cunugeeda yar ay ka murugsaneed soo noqoshada cunugeeda yar waxaa u dheeraa inay wiilkeeda ku nuujiso mishaar qofka mishaarka bixinayana waa fircoonkii doonayay inuu dilo sidaas ayuu muuse kula soo barbaaray qoyskiisa iyo dhaqaalaha fircoon ilaa uu ka gaaro 30 jir maalin maalmaha ka mid ah ayuu muuse soo galay magaalada xilli ay dadka nasanayaan ama laga yaabay inuu ahaa xilli fiid waa xilli ay shanqartu dadka yareed wuxuu arkay laba nin oo isdagaalaya mid wuxuu ka tirsanaa qoomka reer bani israa'iil qoomka muuse midna wuxuu ka tirsanaa reer qibti qoomka fircoon midkii reer bani israa'iil ahaa ayaa dhawaaqay isagoo raadinayo gargaar muuse ayaa farageliyey wuxuu feer ku qaaday midkii fircoon qoomkiisa ahaa halkii feer ayuu ku dhintay kii muuse ayaa ka xumaaday falkan lama filaanka ah ee dhacay markaas wuxuu yidhi kani waa wax ka mid ah falalka shaydaanka rabbiyow nafteeda ayaan dulmiyey ee ii dembi dhaaf rabbiyow nimcada ay siisay ee uma adeegsanayo inaan ku kaalmeeyo dambiilayaasha ilaahay wuu u dambi dhaafay muusena xilligaas muusan ahayn nebi ilaan wuxuu ahaa xilli uu jiray 30 jir 10 sano ayaa ugu dhimneed xilligii loo dooran lahaa nebinimada dilkaas lama filaanka markuu dhacay ayuu muuse cabsaday warkiisa inuu gaaro dowladda fircoon sidaas ayuu magaalada si taxadar leh ku joogay maalintii labaad ayaa muusedana wuxuu arkay isla ninkii reer bani israa'iil ahaa uu shalay difaacayay oo mid kale la dagaalaya mid kale oo reer fircoon ka tirsan sababta isku dagaalayan ilaahay ayaa og balse waxaan fahmi karnaa inaan hore u soo sheegnay fircoon inuu gumaadayay reer bani israa'iil uu arkay qaxooti laga yaabay ninka reer fircoon ka tirsan inuu gardaran yahay balse si kasta ahaatee muuse ayaa ku yiri ninkii reer bani israa'iil ahaa isagoo la yaaban falkiisa joogtada ah maalin walba uu qof la dagaalayo wuxuu ku yiri adiga baadi cad ayaa ku sugan tahay deedna wuxuu isku dayay muuse inuu uga hiiliyo midkii reer fircoon ahaa balse midkan reer bani israa'iil ka tirsan wuxuu ku dhacay maamahadii Soomaalida dayus looma danaansho nabi muuse ka dardaarmay si kasta ahaatee markuu nabi muuse isku dayay inuu difaaco ninkii reer bani israa'iil ahaa ayaa soo qeyliyey kii reer bani israa'iil ka tirsanaa wuxuu yiri muuse miyaad doonaysaa inaad idisho sida ninba shalay u dishay ma doonaysaa inaad wax hagaajiso xataa qof isla qabweyn oo magaalada dhib ku haayo hadalkii ninkan ka baxay ayaa gacanta ku dhigeen sirdoonka fircoon waxayna bilaabeen inay qorsheeyaan muuse sidii loo dili lahaa dilkii muuse la rabay ee fircoon ay u qorsheynayeen ayaa waxaa soo maqlay nin jooga duleedka magaalada ninkii ayaa soo soconaya u yimid muuse wuuna la kulmay wuxuu ku yiri muuse reer fircoon way ku shirayaan inay ku dilaan ayay rabaan ee waxaan kula dardaarmayaa inaad magaalada iskaga baxdo sidaas ayuu muuse kaga baxay masar isagoo cabsanaya wuxuuna aaday dhanka madyan isagoo alla ka rajeynaya inuu ku hanuuniyo jidka toosan
markuu soo galay muuse magaalada madyan ayuu wuxuu arkay dad dhaansanayaan biyo waraabinaya xoolahooda halka laba habloodna ay istaagan yihiin dhinac ay celcelinayaan xoolahooda muuse gabdhihii ayuu u tagay wuxuu ku yidhi maxaa idinku dhacay maxaad u sugaysaan gabdhihii ayaa ku jawaabay annaga ma waraabino xoolahanaga ilaa ay ka tagaan xoolo jirka aabbahanagana waa oday waayeel ah muuse markaas ayuu bilaabay inuu biyaha usoo dhaamiyo uu waraabiyo xoolaha gabdhaha markuu u dhameeyey ayaa iska baxeen isagana wuxuu fadhiistay har hoostiisa isagoo leh rabbiyow wanaag walba aad ii soo dejiso waan u baahanahay hablihii markay usoo laabteen guryahooda ayaa waxay u sheegeen aabbahooda sababta keentay inay si dhaqsaha usoo laabtaan iyo wiilka dhallinyarada ah ee kaalmeeyey odaygii suubanaa ayaa ka codsaday mid ka mid ah hablihiisa inay u wacaan wiilka dhallinyarada ah ee caawiyey odaygan suuban waa mid ka mid ah ubadkii muslimiinta ah ee ku tarmay magaalada madyan kadib markii la halaagay qoomka shucayb ilaa markii la halaagay qoomka shucayb ayaa nebi shucayb soo dil istaagay meedkooda wuxuuna ku yidhi diintu waa idiin soo gaarsiiyey waana idin waaniyey sideen ugu murugooda dad gaalo ah sidaas ayaa magaaladaas waxaa ku soo haray muslimiin qura sidaan ku soo caddaynayba qaybta 18aad waxaana ku soo sheegnay nebi shucayb inuu u dhawaa qoomka luudna wuxuu la soo haajiray nebi ibraahim wuxuu dhalay isxaaq wuxuu dhalay yacquub wuxuu dhalay 12 wiilal 12kaas wiilal markay bateen ay noqdeen qabiilo fara badan oo wadaaga magaca bini israa'iil ayaa muuse ka dhashay sidaas darteed odaygan suuban wuu ka fogaa xilligii qoomka shucayb odaygii suubana ayaa u wacay muuse inuu u abaalmariyo caawinaadda uu caawiyey hablihiisa mid ka mid ah hablihii odayga suuban ayaa u timid muuse iyadoo xishood ka muuqato waxayna ku tiri muuse aabbahayga ayaa kuu wacayo si uu ku abaalmariyo waraabinta aadna waraabisay muuse wuu aqbalay fariintii kaga timid odayga suuban markuu muuse u yimid odaygii suubana ayuu ugu sheekeeyey dhacdadii iyo dhibaatadii uu kula soo kulmay kana soo cararay dhulka masar odaygii suubana ayaa yidhi waxaad ka soo badbaaday dad gardaro badan mid ka mid ah hablaha odayga suuban ayaa waxay ka codsaday aabbaheeda inuu u ijaaro muuse waxayna ku tilmaamtay inuu yahay nin wanaagsan oo ku habboon in la ijaarto oo xooggan oo aamin ah odaygii wanaagsana ayaa bilaabay inuu heshiis la galo muuse wuxuuna ku yidhi waxaan ku guurinayaa mid ka mid ah hablahayga balse waa inaad ii shaqaysaa 8 sano haddii aad dhammaystirto 10kana taasi waa khiyaarkaada mana doonayo inaan ku dhibo waxaad helaysaa inaan ka mid noqdo kuwa gegsada muuse wuxuu ku yidhi taasi waa balanna dhex taala labada muddo 8 sano ama 10 sano midaan dhammeeyaba dhib iguma hayso ilaahay ayaa markhaati ka ah oo wakiilka ah waxaan dhahayno sidaas ayuu muuse ku bilaabay kuna watay shaqadiisa cusub ee xoolo jirka sida caadada nebiyada ahaydba 10 sano ayuu muuse ka shaqaynayey xoolo jirnimo magaalada madyan muddadiisa markay u dhammaatayna ayaa waxaa loo guuriyey gabar ilaahay ku ammaanay qur'aanka xishood ee ka tirsan hablaha odayga suuban ee reer madyan 10kaas sano uu muuse ka shaqaynayay dhulka madyan ayaa waxa u dhammaystirmatay 40 sano maadaama 40 sano uu gaaray ayaa waxaa la gaaray xilligii muuse loo soo diri lahaa dadka nolol ilaahay ku siiyo miinshaar shisheeye ma goyso wasala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed wassalaamu calaykum